madaxweynaha Soomaaliland haddaba isla soo noqoshadiisii maalintii shalato uu ka soo noqday socdaaladiisii uu anbabaxay ayaa waxa sidaad u arkaysteen uu ka soo kacay magaalada Sheekh oo ka mid ahayd meelihii markii uu burca ka yimi uu soo maray Sheekh markii uu ka yimi ayaa madaxweynuhu waxa uu ku yara leexday oo uu ku hakaday waxoogaa tuulada Hudiso lagu magacaabo tuuladaasi Hudiso ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisu ay qadar ku yara nasteen iyadana yuftigiisu inkastoo halkaasi aanu qudbad ka jeedin balse qadar ayaa ku yaranasteen iyadoo halkaasi hadiyado lagu guddoonsiiyay laguna siiyay hadiyadahaasi oo ahaa hadiyado ay ka mid yihiin malabka shinnida oo fresh ah oo ah mid ay hodan ku tahay deegaankaasi Hudiso haddaba madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Ibrahim Cigaal qadar markay halkaasi ay ku nasteen isla markaasina ay waxoogaa la kulmeen odayaashii iyo duqeyda tuuladaasi Hudiso ayaa ay u soo anbabaxeen dhinaca magaalada Berbera aanu gaarin haddaba madaxweynuhu amaba aanu soo gaarin magaalada Berbera ayaa waxa kale oo meelihii uu soo maray ee uu ku hakaday hadalkana ka jeeday kamid ahayd Laaleys ayaa haddaba madaxweynuhu oo iyana kelmado kooban uu ka yiri iyadoo soo warkaysan loogu soo dhaweeyay si kamid ah meelihii hore ee loo soo dhawaan jiray
farxadda uu kala yimi burxood iyo jeedii kale u soo maray taasaan ugu kalaftay inaanu samayno arrintan waxaanu idinku daraynaa farxadda inuu la wadaago mid la mida ama ka wanaagsan halkani waa gurigiisii laga ilaalin maayo meel laga ilaaliyo master cool maadaama uu jaalleeyahay hawl badan inay sugayso muddo 2 bilood inuu safar ku jiray halkana annagu hadal badan uguma naan diyaargaro waxaan soo dhawaynayn madaxweyne oo keliya isagana waxaan leenahay soo dhowow isaga iyo wafdigiisaba waxaan ku soo dhawaynaa gacmo furan weji furan madaxweyne ku soo dhowow tan waa magaaladaadi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت هذا اللي يقول أنا وحوية تذكرت يقول سكيتة فوقية. وما يذكر مركبان تحدي على البيت كنت تجي كهرباء الجوال عليك. وعليه وقت تجي نابر برادنا لقى سوية وقلنا هاي وحوية وقلنا هاي وحيد كدمة وقلنا وحوي بهدي وهاي هاي ما عقليات ما يمشي وهاي وحوية محايا يجيب الحجر ويلا وحكولين يوكيليتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabacdi markii uu ka soo ambabaxay laalays ayaa waxa madaxweynuhu soo galay magaalada berbera socodkii uu soo galayba waxa uu ku leexday dhinaca kheyryada halkaasi ayaanu hadal khudbada uu uga jeediyey dadweynaha ku nool magaalada berbera iyada oo ay soo dhoweyn u sameeyeen dadku oo ay si diiran ay ugu soo dhoweeyeen iyaga oo dadku ay u sii baxeen meel ka baxsan magaalada berbera oo halkaasi waddada labada dhinac ay dadku ka taagnaayeen si ay u soo dhoweeyaan madaxweynaha somalilan oo dhinaca gobolkaasi saaxil yimi kadib markii uu soo dhammaystay booqashadii uu ku joogay gobolkaasi togdheer waa magaalada berbera iyo muuqaalkii shalayto iyo sidii madaxweynaha loogu soo dhoweeyey halkaasi waxaana mar dhow aynu arki doonaa madaxweynaha oo khudbad u jeedinaya dadweynaha ku nool magaalada berbera iyada oo dadka soo dhoweynayay ay kala ahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida hooyooyinka ururada bulshada ardayda dugsiyada ciidamada mas-uuliyiinta laftooda oo iyaguna soo dhaweyntaas ka qayb galay oo si diran loogu soo dhoweeyey oo meel ka baxsan magaaladaba lagaga hortegay iyada oo meelba kooxdada mabaxayndada oo tiro badan oo xidhiidhsanayd ay taagnaayeen oo sidaasina uu ku galay markii dambe magaalada kabacdina khudbadaasi uu u jeediyey hoy laga odhanay